xagala geel wax guntii la galay ka weyn waxaan idin sheegayaa deegaan doorashada rooblana kama tagi karo muusana kama tagi karo dabadhelifna kama tagi karo annagoo xor ah baan hadaan howlka Garbaharey isu tagno inji ay ku qoran deegaan doorashada lagu astaabay 17 September ayaan si sharaf u galeynaa waxaana sameynayna oo arki doontaan Soomaaliya oo dhan aan ku casuun bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida ee kuwa Soomaaliya gudaheeda ku jira waxaan u sheegaynaa galabta waxa ay maanta ay mooriyayeen warqadda uu soo saaray kan ninka la leeyahay guddiga doorashada la leeyahay horta guddigu guddi sharci ma ahan xilliga warqadda ay soo daareen sharci ma ahan warqadda waxay soo saareen intaan xildhibaanada la dhaarin oo taariikhda ahayd 13 oo shalay ahayd horta waxaad garan kartaan wax khiyaamaysan hormuudna uu ahaa ra'iisul wasaaruhu iyo team dabadhilif u ah dawladaha shisheeye wixii horta ay sameeyeen wad arkayseen Soomaaliya banaankaas ay baasha taala galabto wad arkaysaan 11 deegaan doorasho 10 waa laga doortay waxaana dhacaynin Garbaharey oo 8 degmo oo Jubbaland oo xarra gacanta ku haysato 2011 la xoreeyay waxaan suurtagal noqonayn waxyaalaha ay qorqoreen Muuse oo mandatekiisa uu ku ekaa xilliga adeeydeen warqadii uu mooriyaamay oo shalay 13 haday qariyeen markay ay tageen koonfur galbeed markay xildhibaanada ay la doortay kadib soo saaray horta waxay Soomaalidu ku maamulada xagala geel wax guntii la galay ka weyn waxaan idin sheegayaa deegaan doorashada xor ah oo 17 la astaamay ka mid ah Garbaharey laakiin waxaan idin sheegaynaa deegaan doorashadanadii iyo guddiyadanadii inaan magacaabanayno Garbahareyna ay isku imaanayaan dadka horeyna u joogeen dadkii deegaan doorashada iska lahaa waxaan u sheegaynaa Soomaaliyeey meesha dadku uu ku celiyay Rooble waad arkaysaan halka markuu noogu yimid iyo afartii dawlad goboleed habraaci baydhabo loogu talagalay 16 xildhibaan deegaan doorashada Rooblana kama tagi karo muusana kama tagi karo dabadhelifna kama tagi karo waxaan idin sheegaynaa qabaa'ilada halkaan dago afarta deegaan 16 xildhibaan iska leh laga bilaabo bari sabti waxa imaanayo in ay ku doortaan deegaan doorashadii 11aad ee meesha loogu talagalay Garbaharey ahayd waxaan kaloo in ku xijin doonaa idin sheegaynaa habdhaqankii lagu soo doortay deegaan doorashada Jubbaland Kismaayo dadkii lagu soo doortay dadkii waxay ahaayeen dad shakhsiyaad ah aniga hadda shakhsiyadooda ma si faragelinay laakiin dadkii xorriyadda loo diiday oo nabadoonnada lahaa oo samadoonnada lahaa oo salaadiinta lahaa oo xildhibaanada xaq u lahaa oo diiday inuu Axmed doorashada ka qayb galiyo diyaaradahana uga celiyay ayaa jooga oo reer Jubbaland meeshaan waxaad arki doontaan 16 xildhibaan iyo inta kale xildhibaan ah oo asaga uu ka dhigtay ciidankiisa waxaad arki taayada xor ah oo salaadiintii iyo ugaasiyadii reer Jubbaland oo xogtay xalaasha rabay inay ku doortaan ayaa Garbaharey ku dooran karo waxaan idin sheegayaa group shakhsi ah inay dalkan oo capacity aragta leh oo ciidanka aragta leh oo siyaasiyiinta aragta leh oo mas'uuliyiinta aragta leh oo dalka madax banaaya haddaan waxba ka yeelin oo awoodii waxa ka yeelin shabaab baan ka yeelin waxaan idin sheegayaa Rooble yaan waxba lagu wareegaysan Rooble qof maskiin ah way aan ku fakaraynin maskaxdiisa waxa ka imaan kara meeshaan wuxuu xallin karin jifatiisuna xallin karin xalna u keeni karin qof la adeegsado maskiin ah way qof la adeegsado waxa way hadafkii ujeedada Soomaaliya aan shaqo ku lahayn horta wuxuu naarna ku galayo waana wax asaga iyo caruurtiisa ay ku dhamaan doonaan waxaan idin sheegayaa dadka ku dhaqan gobolka Gada gaar ahaan reer Jubbaland qabaa'ilada wax walaacayeen ku keen doorashadiina qabsanaysiin si sharaf la ku qabsanaynaa maxkamadda loo gudbinayaa deegaan doorashada qof naga qaadi kara ma nin xilligiisa dhaco 13 shalay warqad mooriyaayo tuuga markuu imaanayay Kismaayo markuu imaanayay Baydhabo warqad uu qarinayay oo fact waxbaan kuma qaadanina annagoo xor ah baan hadaan howlka Garbaharey isu tagno inji ay ku qoran deegaan doorashada lagu astaabay 17 September ayaan si sharaf u galeynaa waxaana sameynayna oo arki doontaan Soomaaliya oo dhan aan ku casuun